فيلم كمرجان أو مرقان أو تميل كافيجي أنتوني هجامي كي أفرح الدجال السينما ماش وير أركيد وسدح يدك يبر شبكة على حاجات كقوة تميل كان فور ستار الليهن في جي أنتوني وثباقي اللي وصلت ولي بس أنا عادي وصلت اللي حد دقيقة وهرس أن داوني ماشي على رأسي أم بقى كان dabcan soo galay filimka askari ah dambi baarista uu sameeyay sidoo mission uu guulaysanaya dadka ninka gabdhaha cirbada dhowr qoorta kaga mudo halista uu leeyahay waxaasna loo daawana bal aan isla eegna marka filimka Margan iyo positive review uu la kulmayo tan waxay ka dhigantay marka Vijay Anthony uu soo laabtay saaxiib mar baad filimkiisa positive review uu la kulmay laakiin hadda waa ku aqaan tamilka hadda ninka soo filimkiisa loo amaana u kala goonayaan reality jab waxay noqon doontaa sida uu dabcan u gadma filimkan waxa la leeyahay ninka lagu magacaabo Lee John Paul waxa nin editing lagu yaqaan tamil cinema waligiis filimada edit وانا مركي ورس كرسي دايركتنimada ku fariisto Lee John Paul sidoo filimkan uu agaasimay inaba caadi maahan editing ko lagu gaar wuxuu ku darsaday directnimo brilliant perform aan caadi ahayn history narration ka qaabka shaqada loo dhigay afar xidiga filimkan lagu siiyay technical aspect iyo music saddex xidiga lagu siiyay performance ga 4 star waa Vijay Anthony iyo wiilka lagu magacaabo Ajay ayaa filimka loo daawanaya hadaba saaxiibayaal highlight filimka wuxuu noqonaa Vijay Anthony markuu filimka soo galo baarista uu sameynayo Ajay Dishan oo dabcan ilaada filimka dambiyada uu geeso sida looga soo saaray qaabka twist antaanka half kor xogaa waxa la waxyar dabacdi sanad ku jirta la second half ka dambe caadi ma indhaha laga ma qaadi karo very engaging way twist antaan badan ku jiro dil badan ku jiro argagax badan ku jiro qaybaha dambe dhibaatooyin dhanka moralka xitaa ku jiro saadirta waxa la marka Margan waa fadhiya waa saddex xidig ibar afar xidig la sinaa Vijay Anthony wuxuu la salaatay jilin aan caadi ahayn yarka lagu magacaabo Ajay Dishan asagana kaalintii si heer sare ay u qaatay directorka filimkan waa ka baxsay isku soo wado marka film diyaarsana magaalka yaalo waxaan sugan doonaa sida mashruucan u noqon doono iyo wixii ka soo bixi doono